xasuustii quruxda badnayd. waxaa jira waxyaabo badan oo nolosha ka mid ah oo qofku iloobi karo. wuxuu iloobi karaa meel uu martegay, qof uu hal mar arkay, ama hadal aan qalbigiisa raad weyn ku reebin. laakiin waxaa jira xusuuso aan waqti tirtiri karin. xusuuso markasta oo aad dib u milicsato qalbigaaga si aamusnaan ah u taabta. waa xusuustii quruxda badnayd, maalmo aan laga yaabin inay soo laabtaan, balse weligood ku noolaanaya meel qoto dheer oo qalbiga ah. mararka qaar qofku wuxuu fadhiistaa meel cidlo ah, indhihiisuna waxay eegayaan meel aanay dhab ahaan wax ka arag waqti kale oo nolosha ka mid ah. laakiin sannado kadib waxaan ogaanaynaa in maalintaas ay ahayd mid ka mid ah maalmaha ugu quruxda badan ee nolosheenna. maalmihii aan wax walba fuday. maalmihii ay wax walba fududaayeen, waxaa jiray waqti aan farxaddu aysan u baahnayn wax badan. qosol yar ayaa ku filnaa, saaxiib aad la fadhiisato ayaa ku filnaa, wadahadal dheer oo aan ujeeddo gaar ah lahayn ayaa noqon jiray maalinta ugu wanaagsan. waxaan ku farxi jirnay waxyaabo maanta naga yaabiya. mararka qaar lacag ma aana haysan jirin, laakiin qalbigeennu wuxuu ahaa hodan. waxaan haysanay waqti, saaxiibo, rajo iyo qalbi aan weli baran xanuunka kala fogaanshaha. waxaa jiray dad aan maalin kasta arki jirnay ilaa ay maalin noqotay in aan sannado arki weyno. waxaa jiray codad aan maalin kasta maqli jirnay ilaa codadkaasi ay noqdaan xasuus oo keliya. waxaa jiray guryo aan si joogto ah u booqan jirnay ilaa albaabadoodu ay noqdeen sawir maskaxdeenna ku jira. noloshu sidaas ayay tahay. waxay dadka iyo waqtiyadu ku barayaan qiimahooda marka ay naga fogaadaan. qosalkii aan dib loo arkin. waxaa jira qosol aan la iloobin. waxaa jira qosol aan la iloobi karin. ma aha sababtoo ah wuxuu ahaa qosol aad u weyn, balse sababtoo ah qofkii kula qoslay ama waqtigii aad ku qosashay ayaa qalbigaaga meel gaar ah ka galay. mararka qaar waxaad daawataa sawir hore oo aad aragtaa adiga oo qoslaya. waxaad isweydiisaa, goormay ahayd markii ugu dambaysay ee aan sidaan u farxay? mararka qaar hal jumlad ayaa qofka la socota sannado badan. waxaa laga yaabaa in qofkii kuu sheegay uu iloobay, laakiin adigu waxaad xasuusataa maalintii aad u baahnayd ereyadaas. sidaas darteed, hadalka wanaagsan ha fududaysan. waxaa laga yaabaa in erey aad maanta qof ku tiraahdo uu biri noqdo xasuusta ugu quruxda badan ee qofkaas.